maama isfahaan jaamac waa gudoomiyaha haweenaha ururka naaw farceeda magaalada burco xilli uu maanta telefishinka caalamiga GTN la yeeshay waraysi dhinacyo badan taabanaya ayaa maama isfahaan waxay ka hadashay qorshe la'aanta haysa dhalinyarada gobolka Togdheer iyo sidii loogu sameyn lahaa shaqo abuuris ku talin lahaa dhalinyaradan markay ka baxeen qalin jabiyeen ama jaamacadihii dhameeyeen waxa fiican in loo sameeyo shaqo abuurid in loo sameeyo meelo ay ku madadaalaan kubaddi cagta in loo hagaajiyo gobol walba loo hagaajiyo iyo degmo walba kubaddi cagta ku ciyaarayeen ku madadaalanayeen loo dhigo maxay toolay roogagii loo dhigo qalabkoodii bajad loo sameeyo oo horta ay ku madadaashaan ciyaartooyga la soo nooleeyo ay ciyaar jireen inamadu in hablaha loo furo meelo ay xirfadaha ku bartaan si ay u shaqo tagaan oo xirfadahooda ugu shaqo tagaan in loo sameeyo shaqo abuurid oo loo sameeyo meelo ay ka shaqaystaan oo haday tahay iskuulada la sii xoojiyo haday tahay jaamacadaha haday tahay dhalinyarada bajad gaar oo loo sameeyo way haday helaan dhalinyarada madadaalo in wasaaradaha loo kala qaybiyo in laga qayb galiyo wasiirada in laga qayb galiyo agaasimayaasha in laga qayb galiyo agaasimo waaxeedka in laga qayb galiyo dhalinyaradu meelaha ay qaban karto ee dawladda laamaha hoose oo dhan si aan caruurteenu inooga tagin inaan u sameeyno maskaxdooda maxay toolay shaqo abuurid gelino oo ay ku fikiraan markay intii hore jaamacada ka baxday shaqo in ka hesho inta kalena ku fikiraan oo idin waa heleysaan sidoo kale gudoomiye ismahaan jaamac waxay ku baaqday in dhalinyarada loo sameeyo mashaariic horumarineed oo ay noloshooda ku anfacaan mustaqbalka dhow iyo ka fogba waxa aad iyo aad u fiican in loo sameeyo mashaariic horumarineed dhalinyarada oo ah ganacsato ah si maxay dhahday u helaan inta hesho shaqooyinka dawladda mooyaan inta kale si ay u helaan horumar oo ay shaqo yar gacanta ugu hayaan waa in dhalinyarada loo sameeyaa insha Allah bismillaahi kariin shaqo abuurid haday xirfadooyinka kala nooca ee maxay toolay dhalinyaradu ay mid walba uu ku shaqaysan lahaa inta marka hore loo furo iskuulo la baro mar labaadkana la siiyo loo sameeyo bajad ay ku shaqaystaan marka caruurtii ma tegayaan meelna ma qabanayaan nayaayiri keenayaan dhalinyarada waa dhalinyaro cusub waa dhalinyaradii xoogooda cusub yahay in iyaga laftooda xoogooda laga faa'iideysto in loo sameeyo shaqo abuurid si maxay dhahdaa xoogooda aynu ka faa'iideysano oo ay u noqdaan dhalinyaro xagga inamada waxaan oran lahaa ciidamo ahaan ha loo tababaro kuwa waxbarta jaamacadaha ka baxay saraakiishii hore waxay noqdeen way imka odayaal bay noqdeen way saraakiil maxay dhahdaa xitaa laga dhigaa koorsiyo loo diraa dhalinyarada ay noqdaan jiilkii wadanka qabsanaya weeyaan jiilkii weeyaan aynu ku fadhiisan lahayn marka waa in iyagana loo sameeyaa koorsiyo loo diraa saraakiil laga dhigaa xoogooda insha Allah bismillaahi kariin waa inaynu ka faa'iideysanaa sida ugu dhaqsaa badan lana waa inaan dhalinyarada u soo jeesanaa sidii wax loogu qaban lahaa dawladda Soomaaliland waa inaan dhalinyarada diirad gaar ah ku eegto ugu dambeyntii maama ismahaan waxa kale oo carabka ku dhufatay haddii dhalinyarada shaqo abuuris loo sameyn waayo in dhibaato badan u horseedi karto iyadoo arrimahaasi ka hadlaysana waxa ka mid ah hadaladeedii inay tahriiba oo ka dhalan kartaa in maxay toolay moraal xumaadaan oo xagga maskaxda damage kaga furmo ka dhalan kartaa qofkii uu soo hadli karaa meel buu iska fariisan karaa jaadi sigaar buu cuni karaa wax kale oo darooga buu sameyn karaa waa Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.